asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khayarta soo dhawaada videogan gaaban waxaan doonaynaa inaan ku tusiyo sidee u samaysan kartaa VPS server ama virtual private server adigoo isticmaalaya digital ocean. waxaan samayn doonaa xabad server oo yar oo linux ah oo ubuntu ah. markaa soo dhawaada aniga imika system muxuu ahaa digital ocean keyga projects badan baan ku manage gareeyaa oo clients baan ugu shaqeeyaa. marka waxaan doonayaa inaan sameeyo project cusub oo aan ku tusiyo sida loo samaysto ubuntu server adigoo isticmaalaya VPS. marka this project is for training, so just trying out the create project. markaa kadib skip baan dhahnaa anaga waxba move garanayno. markaa soo furto projectiga sida laisku diiwaan geliyo digital oceanka, sida loo set up garaysto paymentkii billinkii howlaha dhan. haddii aad u baahan tihiin commentiga igu reeba, course dhammaystiran baan ka sameynaa, laakiin hadda waxaan doonayaa sida u samaysan kartaa server yaroo fudud. marka hadda projectigan waxba kuma jira everway. kadib waxaan leenahay create. marka create taawat wuxuu ku siinayaa intaasoo option inaad droplet samaysid, inaad kubernetes samaysid, database inaad samaysid, DNS ama domain name inaad samaysid iyo waxyaabo badan oo iyagana muhiima. marka droplet baan dooranaynaa imika. dropletka waa magacay u yaqaanaan digital oceanka serverska. marka ores wuxuu kuleeyahay juice an image. waxaad doorataa linuxka ama operating systemka doonaysa inaad samayso. marka waxaad dooran kartaa inaad samaysid project qalalan oo ubuntu ah ama fedora ama debian and linux, laakiin si nadiif oo waxba ayna ku jirin. sidoo kale waxaad dooran kartaa waxa la yidhahdo marketplace hadaad tagto servers diyaarsan oo shaqo gaara qabanaya. hadda kan waxaa weeye wordpress mid ay ku jirto oo dhammaystiran oo waxyaabaha security iyo waxyaabaha u baahan yahay oo dhan laga soo sameeyey. waxaa kaloo dooran kartaa mid lamp ah oo ku jirto PHP dii, Apache, MySQL-kii oo loogu talagalay in lagu configure gareeyo websiteska PHP da ku ran kareysma. waxaa kaloo samaysan kartaa server adiga ku gaar oo aad ku iibiso websiteska oo cPanel ah oo hosting system baa samaysan kartaa adigoo noqonaya shirkad web hosting ka bixisa. Laravel-kii baa jirta iyadana oo PHP framework ah. Blazor waa samayn kartaa isagana waa sida cPanel oo kale waxaa loogu talagalay in lagu samaysto hosting systemka, iyo Docker oo ah container management. marka inaga waxaan u baahannahay hadda inaan sameyno ubuntu server, laakiin ubuntu serverka aniga shaqo yar aan ku qaban rabaa. waxaan doonayaa inaan ku sameeyo API PHP ah. marka waxaan sameyn doonaa inaan isticmaalo kan lampka ah oo diyaarsan. laakiin haddii aan doorto mid ubuntu kaligiis ah oo aan xaggaan imaado, wuxuu iga baahanayaa dhow inaan Apache, MySQL-kii, PHP waxa dhan aan ku install gareeyo, which hadda waqti ma u hayataa. laakiin haddaan u baahnaa course ka sameyn, waxaan sameyn karnaa inaan ubuntu nadiif aan ku bilowno kadib aan isla barano qaabka loo configure gareynayo. marka hadda marketplace baan tegayaa, waxaan dooranayaa lamp. kadib marka lamp doorto wuxuu leeyahay ma waxaad doonaysaa inaad ku darsatid manage database, ma rabno oo qaali weeye. kadib wuxuu ku leeyahay juice balaankaaga dooro. basic baan dooranayaa oo $6 $6 iyo $5 buu noqdaa. qiimaha adiga nooca doonaysaa ku xiran tahay. bishii marka intaas buu ku charge gareynayaa. haddii regular SSD dhaho wuxuu noqonayaa $5. haddaad doonaysa inaad isticmaashidna NVMe iyo AMD iyo waxyaabaha speedkiisa yara fiican hard diskiga $1 bay kugu daraya. marka inaga kaa basekan qaadanaynaa. sidoo kale halkan waxaan ku weydiinaya inaan ku xidho block of storage haddaad doonaysa space dheeraad inaad iibsato, because kan hadda 25 GB oo spacekiisa aad buu u yaryahay. laakiin inaga ma u baahan imika for this project waxaa inagu filan 25 GB. kadib waxaan dooran doonaa locationka magaalada kuugu dhow ama data centerka kuugu dhow, because hadhow speedka website-kaaga waxaa qayb ka ah data centerka inta u jirto iyo fogaanta kugu jiro. marka aniga waxaan joogaa East Africa, so waxaan dooran karaa Bangalore ama Singapore. labadaas baa igu dhow, because weliba fiber optic aan isticmaalno dhanka ay wuxuu ka yimaadaa I think Asia. so halkaa markaad joogto aniga waxaan isticmaalayaa, waxaa muhiima markaad doonayso VPS server inaad isticmaasho oo very important ah, connectionka la sameynayo authenticationka serverkaaga waa inuu ahaadaa SSH ama secure shell connection. so waxaa sameyn kartaa inaad password isticmaasho, which is not good oo security ahaan ma fiicna, laakiin waad isticmaali kartaa. ani marka ma isticmaalayo. so waxaa jirta qaab loo set up garaysto SSH keys ka isticmaalaysid. so more computer badan baa igu xidhan iyo dad ila shaqeeya.
so waxaan sameyn doonaa halkan computer windows kan isticmaalaya iminka SSH keys aan isticmaali doonaa kadib waxaan sameyn doonaa hadhow mar walba computerkaaga doonaya inaan ka galo serverka password xitaa ma weydiinayo already uu yaqaanaa waxaad sameyn kartaa inaad backup iska u ogolaato oo maalin weekly I think inuu yahay backup inuu kaaga qaado waana muhiim haddii kale datada kaa lumaysa hadhow waxaa kaloo sameyn kartaa monitoring inuu ku siiyo hadhow alerts hadduu serverka culays noqdo ama wax ku dhacaan isaga freeway aan ku darsanaynaa IP version 6 ma isticmaala aniga user data noogu dar no sorry kaana ma doonina kadib hadda wuxuu ku leeyahay finalizing ku sameey serverka hadda horta host name ka hadhow serverka u bixinaysid waxaan dhihi doonaa ubuntu for waxaan dhihi doonaa training aser ubuntu soo bixinana so marka inta sameeyno dad doonaysid inaad tags u sameyso serverskaaga markay farbadina isku xirxirmaan tags ba u sameyn kartaa soo aniga hadda halka xabun baan ugu jiro marka create droplet baan taawanayna wax yar bay qaadanaysaa dropletkiin la sameeyo waa inay sugtaa kadib hadda waxaan doonayaa inta video waxaan ugu talagalaynaa inta aan idinku baro qaabka droplet loo sameysto marka waxaan rabaa markuu dhameeyo setupka dropletka hadda computer dhameystiran buu imika sameynayaa oo la damin karo la shidi karo oo virtual computer oo 100% aad awood u leedahay from booting up to desktop intuu ka tagay marka waxaan doonayaa in yar idinku daro ah sida loo access gareyn karo serverka oo aan command line ka hadda ka soo galo marka intuu booting ka sameynayo aan isku soo noqonaynaa marka imika uu noo dhameeyay booting I think uu dhameeyay progress parky kadib wuxuu ku siinayaa IP address that IP address waa public IP serverka kaligiis baa iska leh marka meel walba adduunka ka joogto ka soo access gareyn kartaa waxaan sameyn doonaa in IP address keena copy-yeysano copy baan dhahaynaa kadib laba option baa sameyn kartaa inaad get started taawato sharaxaad ku siiyo marka cusub tahay laakiin ana ma u baahni ka marka taawato wuxuu ku sheegay passwordka sida u manage garan lahayd loginka u horeysa u sameyn lahayd database sida u access garan lahayd waxyaabo noocaas so right now waxaan sameyn doonaa inaan copy-yesto IP addresska kadib waxaan soo furi doonaa PowerShell-ka Windows 10ka 2020kii aan umaleynay wixii ka dambeeyay waxay u sameeyeen in SSH-ka uu accept garan karo markii hore dib bay ahayd boot software la isticmaali jiro wareer bay ahayd hadda waa la soo habeeyay marka waxaan u baahanahay horta inaan farta idin waaweyneeyo font waxa ka dhigtaa 20 ugu filan tahay inta properties font waxa ka dhigtaa 36 instead yeah right now is better marka saan u access garay serverkeena waxaan sameyn doonaa SSH root at serverka IP-giis inta markaan u diro marka ores Windows-kayga wuxuu weydiin doonaa ma trust garanaysaa serverkan kadib wuxuu sameynayaa inuu ku save gareeyo fingerprint-giisa yes baan oranaysaa wuxuu ku darsanayaa known hosteska ama hostiyada uu yaqaano kadib wuxuu bilaabayaa inuu ku connect gareysmo hadda marka wuxuu leeyahay please wait while we get your droplet ready marka wali booting-kii buu wadaa markaan sugno wiilaada another 5 minutes baan sugi doonaa marka iminka aan mar labaad tijaabino xoogaa yar baa ka soo wareegatay dib baan u galaynaa wax badanna kama soo wareegan aan baa sugi kari waay marka hadda waan galnay we are in now wuxuuna dhahayaa waxaa jirta 106 update oo loo baahan in la apply gareeyo soo horta xag saran ka soo bilowno wuxuu ku sheegayaa serverkaaga documentation-kiisa system load-ka usage-kiiha IP address-ka so this one IP address-kiisa waa kan local-ka uu xiran yahay ethernet-ka xariga ku jira serverka so hadda waxaan isticmaalnaa waa server yaala Singapore mise Bangladesh bay tahay oo real ah waxaa laakiin ku sii dhex jira virtual machine kale oo IP address-ka haysta so hadda wuxuu leeyahay 106 update baa hadda ku dhex jira oo la doonayo in la update gareeyo wuxuu u baahan yahay content state update-ka waxaa weeye security update waana hadda update gareysa serverka hadda u baahan tahay in information ku saabsan update-ka heshana intaad comment-ka qor so Linux-ka mar walba security-giisa waxyaabaha ugu muhiimsan waa inay update gareysaa waxyaabaha waxaa laga yaabaa vulnerabilities inay soo baxaan oo lagu daro Ubuntu-ha so Ubuntu-hana waa very active dad badan baa muxuu ahaa contribute gareeya so update-kiisa waa very frequent marka serverka waa inaa mar walba update u dirtaa markuu dhowr cisho joogaba hadda wuxuu leeyahay kusoo dhawaado droplet-ka DigitalOcean lamp droplet
wuxuu ku leeyahay all portska waa la block gareeyay except 20 SSH ko imika aan kaga xirannahay HTTP oo websiteska loogu talagalay iyo HTTPS oo secure website access-ka ah. sidoo kale wuxuu ku leeyahay browserka waxaad ka eegi kartaa haddaad furto website-kaaga ama IP address-kiisa aad furto. kana marka isagana waan idin tusin doonaa, aan koobiyeysanayna sila koobiye. Okay, on the server wuxuu ku leeyahay default web root-ka waxaa weeye waa default folderka fairka www.html-ka. MySQL root browser-kan wuxuu ku save gareysan yahay failka. so inta haddii imika aan cat dhahno aan soo cat gareeno aan soo print gareeno browser-keena MySQL root-kaaga buu nagu save gareeyay. certbot-kana waa pre-installed. so certbot waxaa weeye SSL ama HTTPS markaad doonayso website-kaaga inaad ka dhigto. so waxyaabaha ay ku fiicanta DigitalOcean waxaa kamid ah waa mar walba server aad install gareysato certbot-kiisana waa lagu shubaa. so waxaa u baahan tahay inaad configure gareyso si aad website-kaaga HTTPS ugu dhigto ayadoona lacag kaa bixin oo free. marka haddii aad doonayso message-ka inaad masaxdo waxaa ran gareysaa command-ka remove-ka ah, kadib waxaan oo kaa masaxayaa. laakiin mar walba very important way xogtaa inaad qorato khaasatan meesha password-ku kugu save gareysan yahay. so marka aad ba umahadsantihiin. aniga serverka imika hoola kalaan ka qabsanayaa. waxaan doonayaa intaa inay la faa'iidaystaan. haddii ay jirto baahi loo qabo VPS-ka sida loo manage gareeyo sida loo install gareeyo isagana waa idin soo dhigi doonaa calls ii soo dira comments-kii ku reeba. laakiin ogow haddii aad barato VPS management-iga iyo muxuu ahaa Docker-ka waxaa awood u leedahay inaad serverska si fudud u samaysato. waxaa awood u leedahay inaad samaysato web hosting adiga aad leedahay oo kuu gaara. waxyaabo badan baa samayn kartaa, waadna ka maarmi doontaa website-yada hosting-ka sameeya ee lacagaha badan ka qaada. marka aad ba umahadsantihiin. waa idin salaamaya khayrta. wixii su'aalaha qabtaan soo weydiiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.